midnimada ummadda Soomaaliyeed waa muqadas mudanayaal iyo marwooyin gudoomiye mahadsanid mudanayaal iyo marwooyin maanta waxaynu u joognaa qadiyadda midnimada ummadda Soomaaliyeed ee aan u dhaarannay ee aan ku dhalannay ee aan u dhimanayno miyaynan ahayn inaan meel uga soo wada jeesanno haddaan nahay muwaadiniinta Soomaaliyeed oo isugu jirta maamul goboleedada dowladda federaalka ah dhammaan macaarad iyo maxaafid Soomaali oo midaysan soo meeshaan uma joogno xildhibaanada labada golo waxaan leenahay walaalayaal Soomaalinimo inagu weyne ha la iska daayo wixii kale ee la wadwado waxaan leenahay cadowga ummadda Soomaaliyeed ha dhaco Soomaaliya way nooshahay ha guulaysato midnimadeeduna waa muqadas ballanteenu waa wada jirkeena midnimadeena iyo ay ka talinta dalkeena iyo dadkeena haddii Ilaahay yiraahdo Soomaaliya Soomaali baa leh sareeda hadday ku warto hadday silciyo gaadho xumaanteed iyo samaanteed Soomaaliya Soomaali baa leh waxaan u dirayaa baaq weyn gobolada waqooyi walaalayaal waxba inii tari maayo ninkii leeyay islaamka adigana kuu fali maayo beere yuuna wuxuu kaaga abuurin dhulkaaga xorriyadda ixtiraafka aad rabtaan wuxuu yaalaa muqdisho Soomaali buu dhex yaalaa waa walaalihiin waxaad tabanaysaan madaxweynaha jamhuuriyaddu wuxuu fidiyey gobol horena u fidsamayda caalajiyaal cambaxan buu bidaaye waxba israa'iil ha ka raasanina yuhuud iyo shaydaane ugu yimaada ummadda Soomaaliyeed ayaa diyaariniya dhulka Soomaali baa leh waxaana mas-uulka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Soomaali baa leh ha israacdo golayaashana waxaa leeyahay laga bilaabo maanta aan ka shaqayna midnimada ummadda Soomaaliyeed saas haddii Ilaahay yidhaahdo allana haynagu garab galo yuhuud ilaaha casa wajallaha diintiisa ku sheegay qur-aankiisa ku sheegay maaha maanta inaan calankiisa ku labisano maaha maanta inaan u cararno inagoo haysano